madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa daahfuray garoonka horeyna wuxuu u furay wejigii koowaad ee ka qalab gurashada ciidamada amisom oo muddo 7 sano ah halkan deganaa maalintaas kadib waxaa la bilaabay nadaafadii wejiga koowaad wejiga labaad ee waxaa la bilaabay oo ah qaybaha kala duwan ee garoonka tuuladii ciyaaraha la dhahayay laakiin hadda waa magaaladii ciyaaraha Soomaaliya garoonka istaadi Muqdisho waa qalbigii ummadda Soomaaliyeed boqolkiiba 75 da'yarteena ayaa indhaha ku haysa sidaas lamida 10 ilaa 15 mujtamaca Soomaaliyeed oo gudaha iyo dibad bahweynta isboortiga ayaa indhaha ku haya wuxuu kaloo ka kooban yahay garoonka kubadda miiska table tenniska oo ku dhex jira xafiisyada iyo VIP-da hoosteeda oo sida aad arkayseen madaxweynaha iyo kooxdii table tenniska ama kubadda miiska uu soo daahfuray saddexda garoon oo isku jirta ayaa ah wejiga labaad ee garoonka istaadi Muqdisho ama garoonka ciyaaraha Muqdisho waxaan bilaabaynaa sanadka cusub haddii Allah uu ogolaado qaybaha kale ee garoonka oo noqonayo wejigii saddexaad waa guul u soo hooyatay 90% mujtamaca Soomaaliyeed oo dalka ku nool oo gudaha ku nool maalintan qabanay xilka wasaaradda anoo raacaya aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo barnaamijka ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo ah qorshe howleedka wasaaraddan ay ku howlgalaysay soo celinta garoomada dalka oo uu ugu horeeyo garoonka ciyaaraha Muqdisho hambalyaan leenahay